الرحيم ما أنت هاي بيشو تايسيدين بيشو كويو طلنا الله بدي كل إياه الله يلا تنك وعرفنا أنا نقمة بوع على كوكا من الصحافات ده سؤال كجيت جواب إنه نقول هالك كهذا الله ninkaasoo sheeganayay inuu yahay sargaal Soomaaliland ninkaasoo darajada uu sitay iyo da'da ka muuqanaysay intuu ay ilhaamo ku yihiin maamulka dawladda ka tirsanaa deegaanka uu ka hadlayay cidda uu ku abtirsado iyo da'da inta ka muuqanaysay inta ay ilhaamo ku tahay ninkaasoo ay keeneen niman deegaanka abtirsiyihiisa qolada naloogu sheegay ma aha waxaan leenahay qoladii noo keentay ha soo hubiyeen dib ha ugu noqdeen abtirsiyihiisa hadallada noocaasi ragga ninkaas ku abtirsado kuma hadlaan waa hadalla ka mustaxiil ah waxaan aaminsanahay qolada naloogu sheegay inuusan ahayn waxaan rabnaa degmada Boocame inay tahay degmo Puntland abtirsiyo dadku ku abtirsado Puntland lagu samaystay ninka reer Puntland ee maanta leh oo deegaankan u dhashay maanta leh waa ka degal roganaya abtirsiyo kala sheeganaya waxaan u maleeyay inay u suuroobay sababtoo ay tahay Puntland abtirsiyo lagu dhisay amulahaana waa Puntland weey marka taa waxaan rabnaa inaan ku qancino qolada leh anaku Puntland ma nihiin waxaan kaloo rabnaa inaan qolada ku qancino walaalaha oo laana ku Puntland maniin ninkan aad u sacabtumaysan bal waxa uu akhriyo ku hadlayo dib u akhriyo oo miyuudin amaanaya miyuudin caaya miyuudin ducaynaya miyuudin habaaraya bahasha gaari degama saarantiina gaariga ka dago cagaha u dhiga baasha samoodeen ma aha bahasha cagaha u dhiga qoladan intaasan leeyahay markaan ku noqdo ninka hadaladiisii ninkaas hadduu jaamac siyaasi yahay waxaan u sheegaynaa waa ninaan war hayne hiilka jaamac siyaadi iyo xasan ugaas annagaa barnay in jaamac siyaadi iyo xasan ugaas isu hiiliyaan annagaa barnay horta waa inuu sidaa u ogaadaa waxaan kaloo u sheegayaa annagu raggaanu isaynaa waa raggaanu wada dhalanay oo ehelnahay laakiin iyagu isaaq bay ishayeen isagu dhaawicii iyo dhimashadii reer Boocame uu uga soo cararay laakiin annagu dhaawicii iyo dhimashadii waan soo qaadnay taana sidaas aan uga jawaabayna tan leeyahay iscadeeya annaga warkayagu waa cad yahayo maamulahaana Puntland baanu nahay xaaladda colaadeeda halka ka jirtana nabad baanu ku raadinaynaa intaan ku raadin karno maamulahaana waa Puntland weey marka taa waxaan rabnaa inaan ku qancino qolada leh anaku Puntland ma nihiin waxaan kaloo rabnaa inaan qolada ku qancino walaalaha oo laana ku Puntland ma nihiin ninkan aad u sacabtumaysan bal waxa uu akhriyo ku hadlayo dib u akhriyo oo miyuudin amaanaya miyuudin caaya miyuudin ducaynaya miyuudin habaaraya bahasha gaari degama saarantiina gaariga ka dago cagaha u dhiga baasha samoodeen ma aha bahasha cagaha u dhiga qoladan intaasan leeyahay markaan ku noqdo ninka hadaladiisii ninkaas hadduu jaamac siyaasi yahay waxaan u sheegaynaa waa ninaan war hayne hiilka jaamac siyaadi iyo xasan ugaas annagaa barnay in jaamac siyaadi iyo xasan ugaas isu hiiliyaan annagaa barnay horta waa inuu sidaa u ogaadaa waxaan kaloo u sheegayaa annagu raggaanu isaynaa waa raggaanu wada dhalanay oo ehelnahay laakiin iyagu isaaq bay ishayeen isagu dhaawicii iyo dhimashadii reer Boocame uu uga soo cararay laakiin annagu dhaawicii iyo dhimashadii waan soo qaadnay taana sidaas aan uga jawaabayna bismillaahir rahmaanir rahiim anigu waa gaashaanle dhexe xasan Musaboos oo ka hadlaya degmada Boocame waxaan jeedinaynaa khudbada nimankii dooraad kaga hadlayay meesha tan oo Soomaaliland iyo ninkii Koreanka sheeganayay hadalladiisu ma ahayn hadallo wanaagsan hadallo dad loola yimaadana ma ahayn hadallo dhaqanka iyo wada dhalashada ka fog bay ahaayeen dadka isku diraya dadka isku munaafaqadeynaya dadka isku halaagaya annagu haddaanu nahay bulshada Boocame horeyna waxaanu ahay Puntland haddana waxaanu nahay Puntland dhalasho iyo deegaan iyo xigto inta waxaanu nahay Puntland iyo maamul waanu ku faraxsanahay sidaan uga tirsanayna waan uga tirsanahay cid naga bedeli kartaana ma jirto cid aan u doofarisanaynaa ma jirto
Somaliland waxaan leeyahay anigoo ah isuduwaha horumarinta iyo arrimaha qoyska Puntland gobolka Sool waxaan halkan ka salaamayaa shacabkan tirada badan ee isugu yimi ee soo buuxdaafiyay stationka Boocame aad baan u salaamayaa bacda salaan waxaan idin sheegaynaa shacabka Boocame inuu yahay Puntland taageersan yahayna Puntland annagu waxa weeye meel kale taageersanay ma jirto Puntland baanu taageersanahay waxaan salaamayaa dhammaan dadka jooga degmada Boocame salaanta islaamka tagu qaalisan baan ku salaamayaa waxaan u sheegayaa bulshada Boocame dhammaan iyo nawaaxigeeda wixii ku nool degmadani waxa weeyaan Puntland bay ka tirsan tahay ninba waxaan arkayay meherada ka hadlayo le Boocame cidii soo faragelisay teedhisaban baanu la dhacaynaa ninkaas waxaan u malaynayaa de waa hadal uu iska yiri laakiin wixii u sacabatumay iyo wixii soo dhaweynayay in dad khaldan yihiin baanu arkaynaa anagu waxaanu nahay deegaanka Boocame Puntland baanu nahay si walba waxaan ku dad ehelaan u nahay waanu soo dhaweynaynaa waanu taageeraynaa waa dadka yagii dhalasho iyo dhaqan iyo dhiig intaba waanu wadaagnaa laakiin ninka jaacsiga maanta Boocame ka talinaya ee maxay ahayd teedhisaban baan la dhacayaa inuu khaldan yahay baanu arkaa meeshan aanu saxaafadda ku haynaa waa saldhiggii Boocame waxaan u sheegaynaa dawladda Puntland madaxweynaha taliyaha ciidanka inay tahay degmadii Boocame bartankeedii saldhiggii uu yahay ciidamadii Puntland joogaan anigoo ah taliyihii guutada ciidanka Puntland Boocame inay nabadgelyo tahay odayaashii dhalinyaradii haweenkii dhammaan ay saa suuqa loo joogo Somaliland iyo waxaan ay akhriyaysaana aysan haysan nin iska soo galayoo xanuunsanayo aanu isniin xagga dhimirka weeyo laha magaalada waxay galbatay aanu garan maayo ay geysatay loo sacabinayay uumba soo galay meesha isagiina intuu dhooda ritay buu cararay magaaladu waa nabadgelyo ciidankii Puntland baa haysa saldhiggii baa shaqeynaya waxaanu ogeysiinaynaa inay ay Puntland tahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي سيدنا محمد. meeshan waa degmadii Boocame ciidamadeedii ahaa Puntland baa jooga waana nabadgelyo weeye aad iyo aad magaalada baan joognaa magaaladu waa shaqeynaysaa saldhiggii weeye Boocame uu shaqeynayaa awal xafiis waxay lahayd waa shaqeynayaan waa dal Puntland weeye dadku maanta maalin dhaweyd wiil baa halkan ka hadlayay ilaha kaadideeda soo cabay adigu jiriqa marada galay ka soo qaad ninka jiriqa waa iska jiriqa ka hadlay meesha inuu cabsanaana waa u maleynaynaa isagana kuma raacsanay qabiil loo eedayn mayno dawladna u eedayn mayno laakiin waa qof iska soo waashay meesha yiri baan u aragnaa allahumma salli ala nabi sayyidina muhammad rahmaan rahiim wa salaamaya saxaafadda odayaasha uqaasha iyo ka qaybgalayaasha saraakiisha labada nooc بوليس iyo military ah isugu jira waa salaamaya salaatu islaamka wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka koowaad waxaan u malaynayaa saxaafadani waxay daba joogtaa hawlihii ka socday Boocame ee maalmahan dambe shir xasaradeed iyo saxaafad xasaradeed baa loo bixiyay way daba joogtaa waxayna u daba joogtaa wax xasarad la yiraahdaa waxay nagaga maamulan tahay dhankan waqooyi bay nagaga maamulan tahay oo sheegasho ah Soomaalidu waxay tiraahdaa qoolay baa la yiri luqun qabasho biyo kuma cabto war annagu hadal la iso soo faray oo nin loo soo dhiibay oo maxaan ku sheegayay dabadiisa laga maamulayo ku noqon mayno Somaliland ilaahay wuxuu noo dhaliyay Puntland baanu ahayn waanu nahay waanu ahaan doonaa taasi waa taa weey tan kale waxaan leeyahay odaygan runtii haybta uu sheeganayo iyo filkiisa iyo darajadiisa iyo habka uu hadlayo iyo meesha uu ka hadlayaba waxa moodaa inay wax fara badan ay isdheer yihiin waxaan u malaynayaa hawl isaga isugu filan waa maqlayseen oo wuxuu lahaa reer Boocame misana wuxuu leeyahay reer Boocame waxaan idin leeyahay hayb ahaan wuxuu sheeganayaa jaamac siyaad halkan waxa degan waa Jees baa degan Xasan Ugaas la yiraahdo dhul baanta waxa weeye ma matalo waxa naga dhaxaysa wada dhalasho isku hiilin iyo tolimo iyo wax wada lahaasho kale baa naga dhaxeeya laakiin inaanu qasab wax isugu qoor qabanno nagama dhaxayso
taa waxaan leeyahay odaygu arrintaa kama fiirsan ta kale waxaan qabaa ciddii dhegaysatayba way miisaami kartaa hadallada dhammaan waa salaamayaa odayaasha saraakiisha wafdida ballaaran oo ka timi gobolka Nugaal ee caasimadda Puntland halka kale waxaan ahay jaamac daahir laba xidigla jaamac daahir sheekh taliyaha saldhigga degmada Boocane waxaan u sheegaynaa warbaahinta iyo caalamka iyo in allaaleyntii daawataba deegaanka aan joogaa waa saldhigga degmada Boocane deegaankuna waa deegaan Puntland ay joogto ka taliso xukunto si walba ninba maalin dhaweyto yimi oday ah oo dhimir ah oo dhinaca ka yimi odaygaasi warbaahinta wax fara badan buu kaga hadlay waxaas anaga waxna quseeyo iyo waxaan ka jawaabayno midnaba ma aha deegaanku waa nabadgelyo waxaan u sheegaynaa madaxweyne ku-xigeenka saraakiisha odayaasha waxgaradka reer Puntland deegaankaas warbaahinta waxa nin waalan baa waxa ku qoray nin waalanna meel walba waa joogaa wuxuu ka hadlay hal islaayo wuxuu ka hadlay cid sheegi karta iyo cid ku talin karta iyo cid ma garanaysa qodobada waxa uu ka hadlay oo bulshada waxa ma garatada ugu sheekeeyay waxa la qaadan karo maaha dadka soo laaya aan islayno ayuu ka hadlay odaygaasi wuxuu ahaa hadalkiisu ma foga ma raacayno ka jawaabi mayno anagu waxaanu qaabilsanahay amniga saldhigu waa shaqeynayaa deegaanku waa shaqeynayaa waad aragtaan waa madal saxaafadana waxaan ku haynaa saldhigii والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحيم وحن سلام يا عقاشة سراكيشة شعب كدقمة بوعمة انت ما وحن سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب أنا وحن شوقنا ديجان كدقمة بوعمة وأنا شوق تشرني وأنا كلنا وكنا لنا هاي أمني جدا ينوران شيء هذا يطلع هذا حلب عن نجسارا وأنا أتاجنا هذين اليوم مالين وحن لنا ديجان كانوا ونبض ninka hadlay oo la sheegay annagu waxa weey sidii mas'uul ma hadlin annagu u hadlay ma inuu sidoo u hadlay ninka mas'uulka ay hadal buu leeyahay ninka jiriga cabtowga ay hadal buu leeyahay annagu u hadlay ma inuu sidoo u hadlay waxaan u hadlinaa sidii mas'uuliyad deegaanka xilbaan naga saaran nabadgelyadiisa dagaalada dhacaya waxa soo socda inta xilbaan naga saaran waanu u taaganahay degmadii baan joognaa beelana kama jirto cid ma haysato Soomaaliland haysato ma jirto waxaan u arkinay maalintuu yimi nin waxa weeye dhulbaantaha oo gurigiisa yimi oo marti annaga noo ah isaguna wuxuu waan duminayaa duminta annaga xilbaan naga saaran waanu dhisannaa haddana waanu sii dhisannaa nin kale waa duminayaa waxaan u aragnaa nin la soo diray oo laaluush la soo siiyay waxa uu u socdana u socon mayso wax fikirkiisu socon may deegaanka annaga leh annaga ku dhalanay annaga xil laga saaran yahay annaga taladiisu naga go'da wiil meel laga soo diray waxba laga weydiin maayo marka ninkaasna waxaan leenahay hadalkiisa anagu qiimeyn mayno dad mas'uuliyiin baanu nahay sidii mas'uuliyad baanu u hadlinaa qabiilna uu waaflagaadeyn mayno cidna wax ka sheegi mayno deegaanka iyo dadweynaha iyo dawladda Puntland iyo bulshada iyo Soomaaliya waxaan u sheegnaa deegaanka Boocane inuu yahay Puntland inaanu joogno aan ku dhalanay aan ka soo toosno aanan u ogolayn qalalaase iyo shoobare aanan u ogolayn amnigeeduna anagu xil laga saaran yahay meel kasta xuduudaha intaan loo leenahay Soomaaliland dib kama wadno ninkii ka wadana isaga mas'uuliyad qaaday marka waxaan bulshada u sheegnaa iyo ummadda inaan waxa weeye deegaanka ay joogno beelana aysan ka jirin inay nabadgelyo tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sideedii bishii 11aad 2002 waxaan wax saxaafadeed waana guriga degmada Boocame xafiiska dawladda hoose waan fadhiyo waxaan rabaa inaan u sheego bariyahan waxa wareegaysa saxaafadaas oo oranaysa Boocame waxa haysta Soomaaliland Boocame Soomaaliland ma haysato waxaan kala yahay guriga degmada waxa weeye magaaladu waxa weeye waa iska qaybsantahay xafiisyada anagu ku leenahay Soomaaliland jeegaysa wariga xafiis ay leedahay lagama dhisin waxna kaba ay qaban waxa soo guriyo iyo waxa dhisay dawladda Puntland dadku waa Puntland sida odayaashu idin sheegeen iyo ciidankuba waxa weeye waa Puntland wax dhibaato hadda Boocame ka jirto waxaan rabaa inaan hay'adaha iyo doorashaduna waa ka dhacaysaa
waa ka dhacaysaa cid waxba laga weydiin maayo diyaar bay dadku u yihiin waxa weeye shaqadan waanu qabanaynaa sababtu waxa weeye dadku tantoodu waxay ku jirtaa inay golayaasha deegaanka dhistaan ay u shaqayso mashaariicda jiibiljiiga loo soo furo waddanku shaqeeyo dadku iskooda isu maamulaan ayay doonayeen wax badan bay maxaynayeen reer Boocame dantooda koowaad waxa weeye in doorashadu ay dhacdo qof iyo codka ninkii meeshan ka hadlayay anigu jawaabi maayo odayaasha jawaabtiisa maaragtay u jawaabay waxaan rabaa maanta inaan ka faa'iideysto halka ka faa'iideysto baaq inaan u diro beeraha walaalaha maxamed waari iyo baadubays iyo maaragtay beesha xasan waa soo dagaalantay walaalayaalow waad aragtaan maanta xaaladdu meesha ay marayso waxa weeye dagaalkan awalna waa la waday haddana waa la wadaa waxaan codsanayaa in labada beelood maanta ay taraasulaan meesha la isku haya ka taraasulaan ay soo dhaweeyaan dadkan dalkooda ay soo dhaweeyaan arrinta waxa weeye ay maanta dulqaadkeeda yeeshaan waxa weeye dad